1960kii ayay bulshada Soomaalidu go'aansatay inay noqoto dal madax bannaan lehna calan iyo astaan u gaar ah oo ay ku noolaadaan dawlad xooggan oo dhammaan bulshadu raalli isaga tahay inkasta oo qaranka xilligaas la asaasay loo rogay qabiilo qolo kasta aag qufulatay haddana qalfoofka guud ee midnimadu waa dhaawacaan la kabin wali buskoodkana si sahal aan looga filayn qaar ka mid ah gobolladii Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go'een Soomaalida kale gobollo kale ayaa xilligan u dhiig baxaya difaaca midnimada qaran marka laga reebo kuwa uu shisheeyuhu kala qoqobay toddobaad ka hor waxaan tabinay warbixin aanu ku hilaadinay sida ay muhiim u tahay in gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ay noqon karaan dawlad goboleed heer federaal oo ka madax bannaan darafyada ku loolamaya waqtigan hadda waxaynu eegaynaa 6 fursadood oo ay midnimada muhiim ugu tahay gobolladaas oo ka madax bannaanaada loonanada dhinacyada dhulkii xorriyadda u dagaalamay oo mar kale midnimo u harjadaya Sool Sanaag iyo Buuhoole dadka deegaanadaas waxay ka soo jeedaan beelihii hore ula dagaalamay gumaystayaashii soo maray Soomaaliya taariikhan marka dib loo raaco halganka xornimada waxay ku leeyihiin door xoog leh 30 sano ee la soo dhaafayna waxay ahaayeen ubuucda isku haysa midnimada dalka haddii uu ka dhismo maamul federaal ah oo qayb ka ah Soomaaliya waxay ka dhignaanaysaa in gooni goosadku si weyn hoos ugu dhacay mashruuca wada hadallada aan dhamaadka lahayn oo xal helaysa xal waara u helidda mushkiladda malafka midnimadu waa qodob taagan oo ilaa 15 sano ee la soo dhaafay aan dhinacna loo dhaqaajin ama horumar laga samayn hadda albaabkeeda ayaa si fudud ku furmaya haddii gobolladan jid u furanto xaalkooda sidaasoo kale wadiqada loo marayo awood qaybsiga dalka iyo nidaamka federaalka ee la doonaya ayaa ku imaan kara si ka degdeg badan filashada la qabo labada arrinba waxa ay ku hirgeli karaan haddii gobolladan ay ka hoos baxaan hannaanka dhextaalka ee duruufaha siyaasadeed ay u abuureen 3 bulsho fooggan iyo hoggaan dhaqan oo isku dhowaanaya 10 sano ee la soo dhaafay bulshada gobolladan waxa ay kala ahaayeen kuwa aan isku xirnayn waqtigan sida laga diwaan galiyay ciwaanada wararka iyo fadhiyada dhinacyada ka soo jeeda gobolladaas waxa sare u kacay doonista maamulka madax bannaan Puntland iyo Somaliland kaasoo rabitaanka ay fududeynayso in dhammaan darafyadu si fudud isku fahmaan dawladda federaalkana ay u noqonayso meesha ugu dhow ee midnimada ay kaga wajihi karto 4 dhacdo hadda sahal balse halis reebi karta dad badan oo taxliiliya arrimahaas doonista bulshada iyo xiisadaha xilligan ka kacaamay gobolladaas ayaa aaminsan in haddii aan la maqal warka bulshada ay ka dhalan karaan ficilo halis badan gelinaya deganaanshaha gobolladii 10 sano ee la soo dhaafay ka badbaaday colaadaha sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya taas oo saameyn ku yeelan doonta fikirka siyaasiga iyo kan amni ee Soomaaliyada hadda soo kabanaysa 5 Xasan iyo Xamse oo haysta fursad aan soo marin dhinacyadii ka horeeyay inkasta oo 2 toddobaad ka hor madaxweyne Xasan sheegay inay doonayaan in dadkaasi aayahooda ka tashadaan go'aankoodana loo madax banaaneeyo haddana warkiisa ayaa ahaa mid ka hooseeya filashada dhinaca Muqdisho ay ka eegayaan bulshada gobolladaas fursadda ugu weyn ee Xasan iyo Xamse oo awood qaybsiga ku metela gobolladaas ayaa inay taageeraan geedi socod nabadaysan oo soo dadejin kara midnimada iyo gobolladaas oo hela xuquuq ay u madax bannaan yihiin 7 khayraadka dihin ee gobolladan u horseedaya deganaansho la'aanta dawladda federaalka fursad noocee ayay ka heli kartaa gobolladan gaar ahaan Sool waxa ku yaala mid ka mid ah goobaha muhiimka ah ee laga sahmiyay khayraadka dihin ee Soomaaliya ku jira xudunta ishaysiga iyo marxaladaha dhextaalka sababaha ka dhigay gobolkan waxaa lagu daraa in qodobka laacdanka shidaalku uu qayb ka yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dhawaan gashay heshiisyo bannaanka lagu keenayo shidaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh ayaana sheegay inay qaadanayaan tallaabo kasta oo khayraadka looga faa'iideysanayo haddii gobolladan ay helaan matalaad u madax bannaan xukuumadda Muqdisho ayaa haysata fursad dahabi ah oo ay shidaalka bannaanka ku keeni karto ma ogtahay maantaba inaad ka maarantid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka qabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka